KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay tahay maanta waa Arbaco taariikhduna waa 13 bisha February sanada 2019 waa maalinta 44 ee sanadkan waxaa sanadkan ka harsan 321 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii 2009 madaxweynaha xilligaas ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke maanta oo kalena sanadii 2010 Saalax Badbaado oo ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka xilligaas ayaa al-shabaab ku soo bandhigeen suuqa Bakaara waxaana uu ku dhawaaqay inuu isaga baxay dawladda Soomaaliya oo ku biiray al-shabaab Saalax Badbaado oo mar dambe isqarxiyay sanadkaas ayaa laga waayay hotel uu Muqdisho ka deganaa maanta oo kalena sanadii 2011 xaflad lagu furayay idaacada tan kulmiye ayaa lagu qabtay xarunta dhexe raadiyo kulmiye waxaana maalintaas bilowday wararka iyo barnaamijyada idaacada maanta oo kale sanadii 2013 waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiye ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow maanta oo kale sanadii 2015 waxaa magaalada Djibouti lagu aasimeedka Allah u naxariistay gudoomiye baarlamaanka Djibouti Idris Arnoud Cali oo xalay oo kale geeriyooday maanta oo kale sanadii 2016 al-shabaab ayaa markii ugu horeysay sheegtay mas'uuliyadda qaraxii sanadkaas ka dhacay diyaaradda Daalo oo hawada ku jirtay maanta oo kale sanadii 1542 Catherine Howard oo ahayd xaaska shanaad ee boqorkii xilligaas ee dalka Ingiriiska ee Henry VIII la oran jiray ayaa la gowracay kadib markii lagu eedeeyay inay gogolaaf sameysay maanta oo kale sanadii 1945 ciidamadii Soviyetka ayaa kuwii Jarmalka ka qabsaday caasimadda dalka Hungary ee Budapest sidoo kale diyaaradihii Spacega ayaa duqeyn ku bilaabay magaalada Dresden la yiraahdo oo Jarmalka ku taala maanta oo kale sanadii 1960 Faransiiska ayaa tijaabiyay bamkoodii ugu horeeyay ee atomic ka samaysan maanta oo kale sanadii 1961 ra'iisul wasaaraha xilligaas ee dalka Congo Patrick Lumumba ayaa lagu dilay gobolka Katanga la yiraahdo maanta oo kalena ugu dambeyntii sanadii 1991 boqolaal ruux ayaa ku geeriyooday kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ku duqeeyeen caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka